iyo marka uma dhutinaysa ila tahay su-aashada ugu dambaysa raba inaan ku weydiiyo waxa weeye aadan barre ducaale maxaa lagu xasuusan doonaa dadka Kenya jooga iyo dadka Soomaaliyeed halkan deganba maxaa lagu xasuusan doonaa rukulat aadan ducaale waxaa lagu xasuusan doonaa garab istaaga uu garab istaagay madaxweynihiisa iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo sida shaqooyinka loo igmaday oo u gutay 8 sano hadda u dambeysay wuxuu sheegay maanta bartiisa Facebook qoraal uu soo dhigay in ku dhawaad 500 oo motions ah uu geeyey baarlamaanka 8 sano kursigaas ku fadhiyay ilaa 250 ka mid ahna ay u meel martay oo bills 250 bill uu baarlamaanka horgeeyey oo laga dooday ama la ansixiyey ama la diiday marka shaqo rasmi uu qabtay Kenyaatiga taas ay ku xasuusan doonaan Kenyaatiga waxay kale ku xasuusan doonaan haddii uu ka badbaado waxay ku xasuusan doonaan waagi uu Islii ka khudbayn jiray oo Machakos iyo Islii isbarbar dhig ku sameyn jiray markii qaraxyada Islii ku soo bateen haddii Soomaalida aan ku soo laabano Soomaalida waxay ku xasuusan doonaan safarkii ka hor imaanayay madax banaanida iyo muxuu ahaa dawladnimada walaalihiis dawladda Soomaaliya villa Soomaaliya ama madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisa nabad iyo nolol ayagoonan fasax u siinin airspace-ka waddankaas xorta ah inay si qasab ku galeen August 2019 markii Axmed Madoobe lagu caleema saarayay Kismaayo dawladana ay diidaneed natiijadii ka soo baxday isdoorashadii Axmed Madoobe Soomaalida marka waxay ku xasuusan doonaan safarkaas sida khaldan uu ku galay maahmaahdii uu dhihi jiray nina uunsan jirin hadduu uunsado meeluusan ka guban jirin buu ka gubtaa islaana uunsan jirin hadday uunsato waxay ka guban doontaa meel aysan ka guban jirin Soomaalida waxay ku xasuusan doontaa arinta badda uu xabadka u garaacday uu yiri inta aniga kursigaan aan ku fadhiyo Soomaali waa ahay laakiin waxa ahay Soomaali Kenyaan intaan Soomaali noqon ka horna Kenyaan ba ahaa badda Kenyana Soomaali uma ogolaan doono taako inta la eegana ka qaadato marka Soomaalida taas ku xasuusan doonaa aad u mahadsantahay waa ku mahadcelinaya Cabdilcasiis Xasan Maxamuud Koofiyad Guduud oo nagala qayb galayay falanqaynta warka oo aan ku eegaynay maanta aadan barre ducaale hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya oo laga qaaday xilkii uu ka hayay baarlamaanka qaybaha kale ee warka ayaan gudagalaynaa aad baad u mahadsantahay Cabdilcasiis waana kaaga mahadcelinaynaa waqtiga mahadsantahay Yuusuf